dibadbaxyada Hong Kong ayaa waxa ay isku bedeleen kuwa laga soo horjeedo hogaamiyaha jaziiradaasi. dadka dhigaya mudaahaaradyada ismaamulka Hong Kong ayaa sheegay inay dibadbaxyadooda sii wadi doonaan tan iyo inta ay xilka ka digayso hogaamiyaha jaziiradaasi. Carrie Lam ayaa shalay sheegtay in lahakiyay sharci muran badan abuuray oo Hong Kong u ogolaanayay in dalweynaha shiinaha ay ugudbiso dadka looga shakisan yahay in halkaasi ay dambiyada ka galaan. dibadbaxyada looga soo horjeedo sharcigan ayaa bilowday isbuucaynu ka soo gudubnay iyadoona tan iyo waqtigaasi ay dhaceen isku dhacyo dhexmaray booliska iyo dibadbaxyaasha. Hong Kong oo gacanta gumeystii hore ee Ingiriiska in badan ku jirtay ee maamulka shiinaha dib ugu soo laabatay sanadku markuu ahaa 1997 iyadoona dibadbaxyada halkaasi ka dhacay loo aqoonsaday kuwii ugu xooganaa tan iyo waqtigaasi. horjoogayaasha dibadbaxyada ayaa sheegaya in maanta oo xada uu dhici doono dibadbax kale oo xoogan kaas oo lagu dalbanayo inay xilka kaga degto hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam.